qolombiyadii yarayd duulaankii imaaraadka ee baabilmandab sanadkii 2015 waxay ciidamo xoogan dhigeen gudaha badda waxay ahayd tii u horeysay ee nooceeda ah kolka laga eego dawlad sida imaaraadka oo kala ah tan iyo sanadkii 1991 waxay sooyaalka geyiga u ahayd xilli kala guur kolka ay imaaraadku isu rogeen jaangoynta mashruuc dhulballaarsi halkii uu kolkii hore damacoodu ku sinaa ganacsigun ku salxiran shaarshaari iyo wax lagu sheega dalxiis baashaal iyo buundhabow barqa dibadda la isla taagay baabilmandab waxaa lagu tiriyaa khadka ugu zaxmadda badan xagga maraakiibta araran ee dunida oo dhan waxaa ka tallaaba 4 milyan oo barmiil oo shidaal maalin walba ciddii gacanta ku dhigtaa waxay hoggaanka u qabanaysaa 12% dhaqdhaqaaqa xagga ganacsiga ee dunida oo dhan aagaa waxaa dhaca dekada cajab leh kuwan oo ay gacanta ku dhigeen imaaraadku siday u dhan yihiin aynu ka bilowna yemen dekadaha tan ugu hunguriga wanaagsan cadan waxay ku taallaa goob istiraatiiji waa gobolka jawigeedu waa u degan yahay biyaha marsaduna waa ay guda ballaaran yihiin maraakiibta waaweyne si sahlan ayay ugu xidhan kartaa sidaa awgeed waxaa lagu tiriyaa kan keliya ee meesha ka saari kara marsooyinka jabal cali iyo raashid ee imaaraadka laga leeyahay sanadkii 2008 waxaa kiraystay imaaraadka 100 sannadood imika marsadaa cadan waa la ibatiray oo cid adeegsataa ma jidho waxay u egtahay in imaaraadku uu kiraystay inuu dilo kadib kolkii laga dejin jiray 500 oo kun oo konteenar imika waxaa laga dejiyaa 212 konteenar oo keliya maraakiibtuna imika way ka carareen kadib kolkii lagu soo rogay canshuur xad dhaafo oo gaadhay 80% sanadkii 2013 maamulka cusub ee Yemanta kii ka dhashay kacdoonadii dadweynuhu waxay soo bandhigeen in la laalo heshiiskii marsadaha ee la galay imaaraadka kadib kacdoon xagga shacabka oo ka biyadiiday taa afgembigii xuutiyiinta iyo isbaysigii saalax kuwan oo imaaraadku xagga dambe ka riixayeen tan iyo sanadkii 2015 tan ayay ahayd tii ka dhigtay imaaraadku inay helaan fursad ay dib ugu soo celiyaan xoogtii kaga dhuntay kolkii shadafta loo laabay waxay u adeegsatay isbaysiga carbeed ee lagu horgalay weeraradii Yemen lagu qaaday ee ay Sacuudi ugu hogaaminayeen ujeedadu waxay ahayd qabsashada dekadaha dalka ee Mukalla Shahar Belxaaf iyo Makha halkay gacanta ku soo dhigtay jasiiradda Suqadara iyadoo doontay inay ciidan ka qoorto dadka deegaanka jasiiradda imaaraadku dagaalada ay ku qaadeen Yemanta waxay ku hanteen in ka badan marso imaaraadku waxa uu noqday ii kaliya ee xoog ku maamula dekadaha Yemen oo dhan kolka laga reebo xudayda Eritrea xaruntii ciidan ee u horeysay imaaraadku yeeshay meel ka baxsan xuduudda dalkooda ayaa ahayd Eritrea gaar ahaan marsada casab oo iyadu isu rogtay xarun xagga ciidanka cirka oo casri ah iyo biyuhiisu ay gudaha u dheer yihiin ayaa suuro gelisay in halkaa lagu saasxiro xarun xagga tababarada ciidamada ah Somaliland imaaraadku waxay gacanta ku dhigeen marsada berbere ee Somaliland gooniisu faquuqa cid aqoonsanay aysan jirin heshiiskan oo qiimihiisa lagu qiyaasay 442 milyan oo dollarka Mareykanka ah Puntland horjoogayaasha dowlad gobolka Puntland ayaa saxiixay kadib kolkii la laalushay heshiis sadbursi oo imaaraadka laga leeyahay oo lagu mudeeyay 30 sannadood ujeedada lagu sheegay horumarinta iyo maamulka marsada Boosaaso ee istiraatiijiga ah tan oo qarash ku baxay lagu qiyaasay 336 milyan oo dollarka Mareykanka ah Djibouti sanadkii 2014 ayuu laalay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geelle heshiis sadbursi oo imaaraadku leeyahay tan oo ku jeeday maalgashi ku jeeday marsada Dooraale sida in badan ay tuunsan yihiin imaaraadku waxa uu bixiyay laaluush si uu guuleysto tartankii loo galay heshiiska dhaqdhaqaaqa imaaraadka ee baabilmandab ayaa ay daymo sugad badan qabaan inay ku salxiran tahay qaabaynta hab goboleed cusub tan oo sutid u haya Mareykanku tan la xiriirida Mareykanka gaar ahaan waxa lagu sheegay la dagaalanka burcadbadeeda iyo ka hortagga isballaarinta Iiraan ee gobolka imika 3 goobood oo kaliya ayaa u haray imaaraadka marsada Dooraale Djibouti jasiiradda Miyuun ee Yemanta iyo xudayda oo imika lagu tiriyo marsada u weyn marsadaha dalka Yemen haddaba siyaasadahan isuboodada ee imaaraadka ayaa shaki badan ku beeraya deriska halka ay ciidamo u gaara ka qoranayaan meel walba iyo xabsiyada qarsoodiga ah ee ay ka igleen dhulka Yemen iyadoo aysan waxba ka ogeyn maamulka dalka Yemen ama hoggaanka isbaysiga carbeed ee Sacuudigu horboodayo tan intaaba ka daran imaaraadku waxay hiiliyahooba la garab joogaan ururada mucaaradka si ay dantooda gaarka u gaaraan si ay iyaga dabka isugu dhiibaan iyo maalgelinta dhibaatada xooggan ee imika ka taagan koonfurta Yemen tan uu urjoogaha u yahay Aidarus Zubaydi imaaraadku waxay imika aad ugu mashquulsan yihiin marinka baabilmandab halka Iiraan si dhan gacanta ugu hayso marinka Hormuz ee imaaraadka dariska laatan ay marta maalin walba ku dhawaad 40% wax soo saarka gaaska ee caalamka oo dhan kolka lagu daro sida uu dhan yahay ganacsiga dalka imaaraadku waxay ku duulayaan jasiirado dawlada kale halka ay uga tageen jasiiradahoodii maamulka iyo gacan ku haynta dalka Iiraan tan iyo sanadkii 1971 ka daro dibadal iyo ciidamo caloosheed shaqaystayaal soo dhoobtay badweynta Hindiya isla markaana ilowsan in dalka imaaraadka oo idil u yaalo goob ay si sahlan u garaaci karaan sawaariikhda Iiraan su'aal imaaraadku ma ka xishoon doonaan inay shanta kala hortagaan Iiraan mise tu aynan ogeyn asiisa ka godoweyn saaxiibtinimo ayaa u qarsoon